sirtii ugu weyneyd ay dhaqaatiirtu kaa qariyeen. Ma ogtahay in awoodda dareenka iyo caafimaadka xubinta taranka ragga aysan ku xirnayn cabir iyo nafaqo gaar ah, oo ay boqolkiiba boqol ku xiran tahay wareegga dhiigga xubinta taranka? Sirtan dad badan ma oga. Xubinta taranku ma laha muruqyo waaweyn, waa sida suuf oo kale. Marka maskaxdu bixiso signalka, xididada dhiigga ayaa si degdeg ah u ballaarta si ay dhiig culays leh gudaha u soo galo. Sirtu waxay ku jirtaa maado loo yaqaano nitric oxide. Maadadan waa maadada inta badan muhiimka u ah xididada dhiigga. Haddii aad leedahay fadhi badan oo macnaha fadhigaagu badan yahay, haddii aad cunto cuntooyin saliidu ku badan yahay, haddii stresska iyo dhafarku kugu badan yahay, maadadan way yaraanaysaa. Dhiiggaagana ma gaarayo meeshii loogu talagalay. Macnaha xubintii taranka dhiig badan ma gaarayo. Sidee markaa u kordhin kartaa wareegga dhiigga? Waxaad u baahan tahay marka koowaad inaad samayso socod. Sidoo kale inaad samayso jimicsiyada lugaha, bowdada, inaad dhisto bowdada. Sababta marka bowdadaadu jilcan tahay, wareegga dhiiggaaga xubinta taranka wuu yaraanaya, dareenkaaguna wuu yaraanaya, ragnimadaadu way yaraanaysaa. Sababtoo ah socodku wuxuu si toos ah dhiigga ugu riixaa ama u geeyaa miskaha ilaa iyo xubinta taranka. Cuntooyinka nitrateska laga helo waxaa ugu horeeya qaraha, toonta iyo waxa loo yaqaano beetroot ama bayturaafka. Ka fogow sigaar cabidda, sokorta badan, meelaha qiiqa ku badan yahay, sababtoo ah dhammaan saddexdan waxay xiraan xididada yaryar ee dhiigga xubnaha taranka, waxayna baabi'iyaan awoodda dhiigga ku gaari lahaa xubintii taranka. Haddii aad rabto markaa inaad awood dareenkaaga inuu sidaa ahaado, tayadaada, tirada shahwada intaba in ay fiicnaadaan, talooyinkan aan kuu soo gudbiyay waa inaad qaadato.